Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorials. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, sidoo kalena muuqaalka inoo laagaray. Haddii aad hore inoola joogtayna waxa aan ku leeyahay saaxiib mar labaad soo dhawow. Dabcan bilooyin dheer iyo maalmo dheer kadib mashquulkii aan ku jirnay si tartiib tartiiba ayaan uga soo dhammaanoonaa. Haddaba sida aan hore idinkugu sheegay waxaan idin soo wadaa ama aan idin dhahay waxaan idin diyaarinayaa cashiro markaa aad iyo aad u xiiso badan. Dabcan janaalkan waxaad kaga barateen waxyaalo fara badan oo markaa positive ah oo janaalada kale aysan oolin. Sidii iyo si la mid ahna waan idin soo wadaa, waana ku soconaynaa. Mar walba waxaad igaga barateenna waa diyaar. Waxaad isweydiinaysaa sababta muuqaalkan aan u duubay ama codkaan u soo saaray saacadan. Dabcan waxaan hore idinkugu sheegay in aan diyaarin rabo welina qorshaheeda aan ku jiro in aan idin baro qaabka markaa alaab waddan kale uga keensataan, sidoo kaleetana yacni Soomaaliya haddii ama gobol haddii aad joogto ama haddii aad joogto markaa caasimadda aad keensato kadibna aad sii iibiso adigoo markaa lacag ka sameynaya. Dabcan saacadan tusaale ayaan u soo qaatay. Saacadan hadda waxaa keenay wiil aniga aan baray qaabka markaa processkaas loo maro. Dabcan saacadan ayuu wuxuu ka keenay ku dhawaad 50 xabo iyo wax ka badan. Saacadan haddii aan ku sharaxo sida muuqaalka aad uga jeedo waxay wadataa 2 suun. Dabcan maalinba mid aad xiranaysaa. Maanta haddii aad meel ku aado birituna haddiina mid kale ayaad markaa iska furi kartaa midkii hore, mid kale oo nooc kale ayaad ku xiri kartaa. taasoo ka dhigan ama loo malayn karo inaan 2 saacad isticmaasho. Waa plan A qorshaha koowaad. Qorshaha labaad sidoo kale waxa ay wadataa ama ay leedahay earbuds ama earphones dhago. Dabcan dhagahan haddii aad suuqyada elektarooniga aad tagto ama meelaha online lagu iibiyo aad tagto way kala duwan yihiin. Qaar baa 25 ah, qaar baa 20 ah, qaar kuwa ugu yar waa 15 ama 10. Okay, saacadiyo 2 suun leh sidoo kaleeto iyadoo dhaga bluetooth wadata oo original ah oo last version ah. Sidoo kale waxaa u dheer in markaa telefoonkaaga aad ku connect gareyn karto ama aad ku xiri karto. Kadib marka aad ku xirtana aad awoodi karto inaad wax ka wacdo lagaana soo waco. Telefoonkaaga xaafadda yaala ama qof kale oo isticmaalayo ayaad number waca kartaa. Haddii uu ku soo wacan waad qaban kartaa oo waa la hadli kartaa. Sidoo kale waxaa intaas sii dheer haddii telefoonkaaga qadka uu daaran yahay qofna uu ku baashaalayo aadan ka qaadi karin, haddii WhatsApp ama Messenger laga soo waco saacadaada ayaad ka qabanaysaa wadna ku hadlaysaa. Sidoo kale waxaa intaas sii dheer waxay leedahay ku dhawaad 100 yacni markaa background image yacni saacada marka aad daarto mar walba sawirka aad rabto ayaad saaran kartaa. Yacni kama hadlayo sawirada adiga aad leedahay, laakiin sawirada iyadoo ku jiro oo background markaa images ah ama wallpaper u taqaan sawir. Haddaba saaxiib inta aan muuqaalka gabagabeyn waxa aan ku xasuusinayaa inaad muuqaalka like inoo saarto, sidoo kalena markaa janaalka subscribe aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u share gareyso. Haddii saacadan waxaasoo dhan ay u dhameystiran aad doonayso, numberka waxaan kuu soo saarayaa meeshan iyo commentiga iyo description-ka. sidoo kale qiimaheeda sida caadiga waad aragteen iyadoo TikTok lagu xayeysiinayo, iyadoo markaasi toos ah Facebook lagu xayeysiinayo. Maanta haddii aad baxdo oo suuqyada elektarooniga aad tagto waa $25 oo war la'aan ah ama markaa hadal aan ku jirin. Haddii markaa Facebook Marketplace-ka ama meelaha kale TikTok-yada waxyaalaha lagu xayeysiiyo dadka guryahooda ku ganacsada ee online-ka ku xayeysiiyana waa $18 ama $20 oo war la'aan ah. Haddaba saacadan yarkan waxa uu idinka siinayaa qiimahaas qiimo ka sii hooseeya aanan u dhaweyn. Haddii aad doonayso numberka meesha saaran seefo, WhatsApp-ka kala hadal, ka dalbo kalarka aad rabto. Muuqaalkana waan soo gabagabay insha Allah.